waqtigii 2021 waana anagu inaan bano aad saaxiib ahayna wada socon jirnay hadayna ka waadintay Allah u naxariisto waay inaan kaas xaafadooda waxa la gali jirtay xaafad kale waay marka gurigayga laha reer baa kale ku gali jiray okay anaguna waqtiga deesoon isku badii waxaan iska ciyaari jirnay dhalinyaro ahaydana isku xidhano markaan ku bada ka imano xaafadooda iska tagi jirnay halkaas iska joogi jirnay aniga laftarkaygu isugu u iiman jiray waxaan ahay laba qof oo iska walaala waay waxa dhacday ilaahay wuxuu qoraalka ka wado idima joojisay inan reerkan guriga la gala inantoodii uu inanka ka helay waay waana labadan reerna waa laba reero aad isku fahmay isdhexgalay dad walaala ah oo meel wada degan bay noqdeen waay intankii waxa ku adkaatay sidoo inta dareenka ugu sheegan lahaa waay anigu intuu muddo la meermeeray ii sheegay waan la yaabay walaanu inantan walaasha baan oo qaanaa baan ku leeyahay isku guri baatina qol noqon mayso iska daa waay haddana qalbigu kaama idan qaato waar muddo markay inanka jacaylkii ka dhabo noqdayba isagii inantii intuu tago ma odhan karayo dee waan ku rabaa ma odhan karayo gurigii baa la wada joogaayo dee xumaan baa meeshii maraysa hadday isdiidaan anigu arrinkay daray wuxuu yidhi haddaa saaxiibkay tahay hawshaa dhamee waxa saaxiib laisku yahayna waa in wax la wada qabto iyadoo bir igaga adag anu horta waxaan haystaa ruul ama sharci odhanaya saaxiibka walaashii ma damci kartid lama hadli kartid ma sheekaysan kartaan anu ruulkaasaan haystaa inantana maadaama isku guri yihiin oo iska walaala camal yihiin walaashii baan u tiriyey bir baa igaga adkeyd inaan ku idhaahdo haddana way dhacday markii koowaad inantii waan u bandhigay horta waxay noqotay in inantii aan lambarkeeda helo la hadlo la xidhiidho aan dee uga horeyn anagu aanu isdhex galno tii markay dhacday markii koowaad baan inantii arrinkii baan u sheegay way la yaabtay rood waalinta igu tirnay waxaan soo shaqaynaya maaha iga xisho xaggeed igu wadaa mar labaad baan isku dayey mar labaadkina sidii silaab baa dhacday saaxiibkii baan sheegay ku war arrinkan arrin naga soconaya maaha inaga dah aniguna sideedaba haddaan shay laba jeer isku dayo wixii ay waayo mar saddexaadka iskuma dayo waa niyad jab dhawaay markii saddexaad bii gurniyo markaas ku taxlooshay isku day mar kale markii dambe markii saddexaad baa aan inantii arrinkii u bandhigay inantii waxay igu tiri isagoo afkiisa iga yidhaahdo sax maxaad kusoo dirsanaya saaxiibkiina dee galaan biyaaba midna la daraya midna la dul qabanaya markii inantii hor joogo waxa ma odhan karayo wadnihii baa dhacaya aduu waxbayaan hadalkugu daalan munaaye labadii qofaan isku xidhay inanka inantii uu sheegay way wada socdeen way isdhex galeen dee laba qofoo wada joogo mar walba is arkay jacaylkoogu heer saro noqonaya inantana iyo inankana waa waqtiga iska yaraantiyo jacaylki yaraanta weeyaanoo jacayl horeba kuma dhicin kan yaraantuna aad buu howl badan yihin muddo 6 bilood markay wada socdeen anu horta waan iskaga dhex baxay dadkan lamaani waxaana dhex kala galo waan iskaga dhex baxay sidoodii bay wada wateen 6 bilood markay wada socdeen taariikhdan ku beegan tahay 2021 bishii 8aad 2022 maalin khamiisa uu inankii go'aansaday inuu safar baxo berbera anuguna maadaama aad u saaxiibahay waxaan u inaan israacno waanu go'aansanay marka habeenimidkii markaan ku heshiinay anugu iska soo hoyday isna xaafadii tagay meelaha xilli yar dambaan kala tagnay xaafadii markaan tagay bay aniga hooyaday ii sheegtay safar caabudo waxa degan rayaa tagay inaan xaggaa bari aan tagayo oo alaab iyo hawlo noocaas wax laga dirayo safarkii wuxuu noqday inaan ka baaqdo saaxiibkii baan daami bixiyo wixii dee aan ku tari karay ku taran kulooga ku soo ducaynaya sidii markaa hada anigu subaxii safarkii baan iska galay isaguna safarkii buu galay 10kii subaxnimo markay ahayd wala markay la soo wacay waxa la sheegay inuu gaarigii la dhacay shil inuu galay inuu dhintay saaxiibkana geeriyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun way irka iyo dhulka meel aliyeena jooga maskaran waayay waan yaabay naxdin kadib caabudan ka soo baxay waxaan imid Hargeysa imid magaaladan imid soo socday gurigii oo markii balaayadu dhacdana umada isla gurigii inta ay joogtana waa lagu soo celinaa lagu aasay alla naxdi weyn gurigii baan imid inantii waxaan arkay daqiiqada hayso leeyahay baa galay way dhacday xaafadu waxay moodayaan
يعني دولة شعرنimada inagu ooyso laakiin ma ogeyn jacayl meesha yaalo aniga mar inantii baan eegaa mar saaxiibkay oo geeriyooday baan xasuustaa saaxiibka horta xaqiiba yimid waa lawada taasna waa lagu xukumay laakiin waxa tahay igaga daran qofka nool qalbigiisa dhintay qalbigiisa xanuunay ee waliba inuu murugoodo anigu aan 100% ka shaqeeyo ha tadu maalinka horta maalin iga adkeed maalinkii labaad ee noloshayda igu adkeed baa maalinkaas kadib aduunkii waa la aasay habeenimidkii guriga u soo noqday gurigii waan iska yara joogay inantii oo inta gurigii kolkii hore laga kaxeeyay intii ganikii dambe meel kale la geeyay adna la soo celiyay habeenimidkii tiri gurigii ku celiya oo dee aan nefiba ka sarreyn baa ereyay aygu tiri baan markaa maskaxda ku qoray haddii la joogi lahaa wax walba oo noqon lahaa waxaan qorshaystay inuu mustaqbalkayga noqdo eraya noocaasa kadib habeenimidkii waan tegey xaafadii baan iska tegey maansadan dhammaan qoray habeenka waa jimce waa 2021 bishii 8aad 8 kadib noqonaysa habeenimidkaas waa jimce duhurnimidka waan soo aniga walaalkay ninkayga way tabeek markaan tagay hurdo ma jirto goorgelin hore aaban adana aan toos aan sidii iskooga dhafara 12 duhurnimo ilaa koodii macbaarahaasna walaalkay israacnay waxaan tagnay meel la yiraahdo Batalaale anagoo yarku u dhow ayuu gaariga nala dhaxay idinkiina anagay deetano gacantan iyo lugtan ka jabay 3 bilood baan jiifay 3 biloodan jiifay maabilkaygii man arag idee asxaabti meel aan kala xiriiro inantii cid aan ka waraysto waan waayay sax laakiin ma san habeenimidkaan ka yimid jimco habeenimidka jimcaha baan ma sadan qoray kadib warqad baan ku qoray warqadii baan sidii ku helay 3 bilood kadib horta inantii maanta meel alay meel ku suganta ma garanay laakiin mar walba uu duceeyay inuu Ilaahay nolol qurux badan iyo farxad siiyo qurux badan siiyo qasada waan kugu dheereeyay inantii baa hadla soo waxay tiri dhigiisa ka doortayo dhagiisa u jeestayo naftayda u dhiibayo qalbigu ku dhaatayo dhakhtarka nolosheediyo adaa iga dheelmado naftay ku dhimanaysaa mid kaan dhaar ugu marow inuu dhexirkay furow ragana uga dheelmadow cishqiga kii ii dhigee dareen ugu dhaamiyow rajada kii ii dhiseen dhabtayda ku seexiyow malagu ku iga dhuftow markaad iga dhimateed dunida ka dhaqaajisaa naftaydii dheelido cidlada ruuxdaa dhigtaa ilmadu ku dhammaatayo dhaqsana kuu doona soo xusuusuhu dhaamiyeen dartaa dheef waan jaro cuntana maba dhadhamiyee haddaan dhugan laamaroon dheehii wejigaa kol qura dhaayaha kuu baabaa dharaaran busuudila hurdana waan ka dhaartayoo habeen saqdhaxaad ayaan dhaxanta meermeeraya anoo dheeligu da-aan haddana dhidid hoorayaa naftaan dhooldooliya murugta dhaafdhaafiya inay iska kaa dhigtaan dhabtii ugu waaniya dhammow dhammahaygiyow tiirkiya dhidibkaygiyow nolosha dhammi waa naco irbaaxaan kala kulmee ayaa qeyrkay dhaafin nafteydana dhiirin doona sida adigu dhowran doona halkaad igu jirtay ay bixin doona weeyaan dhamacda kulile dabkaan dhiigiyo ku hayaasintee dhuuxayga uu shurmee wadnahan dhiigii ka baxay talow dhakhtarkiisimee sidii dhimir baan ahoo hadiyo goor waan dhurmaa dhaqaaq socod baan ahoo inaan marihii dhigtaan dartaa ugu sii dhowow waxaanu dhaxaa cidlada dartaa baan dhimanaya intaas waa calaacalkii haddii uu adduunyadii la joogi lahaa waxyaalihii ay u samayn lahayd mustaqbalkii noloshii ballamihii ma garanaysaa waxay tiri inaan ubad kuu dhaloon dhabeelana kuu korshoon misena qoys wada dhisnoon hantiya maal kuu dhaqoon dhagaysta waxaa tiroon dhammaystiran kuu noqdoon dhaliilana kaa tiroon nacabka kaa dhiciyoon guushana kugu dhiiriyoon farxadda isla dhaabnabaan qorshaha meel noo dhigay dhulkaadiga hoos martay miyaanu ku dhowrsadeen hadeer dhiigaygiyo intaa markay tiri way xasuusataa daranta in geeridayahay inaanu soo noqonayn inay duca iyo samir un taagsato iyo dib ka xasuusata waxay tiri hadeer dhiigaygiyo dhibkayga allaan baryaa inuu nabarkay dhayo dhaawaca iga soo bogshee waxaan hadalkaaga dhigay dhoobiyo dhagax baa ku haya dhadhaab baa kugu dul xidhan ifkana ka dhammaatayo adduunka la dheelmateen inaana dhacayn mar kale inaan dhaxal kuu noqdo samro hadalkaaga dhigay dhammow jannadii tago ka dheerow jahanabo su-aalaha dhami garo rabbigu kaa dhowr cadaab fardowso ku dhaadanow
anina dhabarkaan adkayn waxaa igu dhacay macaan rabbii qadar baa dhigee samro hadalkaaga dhigay bay tiri samro hadalkaaga dhigay wallaahi waa cashi waxaa la yidhi waa geeridaas qalbiyo badan waa jabisay laakiin waa lagu wada xukuman yahay